السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada janalka Emras. si sharaf leh waxaan kaaga codsanayaa haddii aad ku cusub tahay janalkeena inaad subscribe nagu caawiso aadna gaarsiiso asxaabta inteedii kale. waxaan maanta ka hadlaynaa ama aan rabaa inaan waxyar ka taabto arrimihii shalay ka dhacay sida shirarkii shalay ka dhacay ay beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay qabsadeen oo ay ku soo saareen maxaa la dhahaa warmurtiyeed. hadalka aan rabo inaan halkaan aan ka iraahdo wuxuu yahay habala shiree ma loo dhamaa shalay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho. shirkii magaalada Muqdisho ka qabsoomay ma loo dhamaa mise dad mucaarad ah kaliya ayaa shiray? sida aniga ay ila tahay waxaa shiray dad mucaarad ah. sababta kusoo aadisayna maxay tahay in maanta shirkaasi la qabto? labadaas arrimood ayaan rabaa inaan waxyar ka taabto. aan ku bilaabo shirkii dhacay. shirkii shalay waxaa qabsatay qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha Soomaaliyeed oo aadka u ixtiraamka badan, qadarintuna aad ay ugu dheer tahay. walaalaheen Soomaaliyeed iyo madaxdeennii qaranka ee shalay meesha ku shirtay qofka caqligaa saliimkaa leh uu dareemayaa in shirkaasi uu ahaa shir mucaarad ah. mideedii kale maxaa haatan kusoo aadiyey? su-aasha taalantaas waa jawaab ayay u baahan tahay. waa su-aal jawaab u baahan. shirkii shalay ka qabsoomay magaalada Muqdisho waxaa ka maqnaa salaad cali jeele iyo waxaa ka maqnaa cali maxamed geedi, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ee dowladdii allah u naxariistay cabdullaahi yuusuf. madaxdu shalay waxa ay sheegtay in shirkan loo dhan yahay, laakiin looma dhaweyn. cali maxamed geedi waa mucaarad, laakiin mucaaradnimadiisu waa mucaaradnimada saxan ee dunida hormartay looga dhaqmo. laakiin dadkii shalay meeshaas ku shiray waa mucaarad balse raba in ay wax ku dumiyaan dowladda haadan taagan. wax badan dalka way u qabatay, wax badanna waa ay ka halaabeen. soo wixii ay qabatayna in lagu ammaano, wixii ka halaabayna in lagu dhaliilo. dowladnimaduba waa intaas. hadday dowladdu maanta wax fiican kuu qabato waxqabadkeeda ku ammaan. haddii ay waxyaalo ay isdabamarisane ku dhaliil oo bannaanka soo dhig. waa intaas un keliya. marka shirkii shalay ka dhacay ani muhiimad ahaan sid aan anigu isleeyahay oo fikradeyda ahaan aan raba inaan halkaan ugu dhiibto, waxa uu ahaa gogol xaar loo gogol xaarayo doorashada dhici doonta sanadka 2021. taas ayay gogol xaar u tahay. marka ummadda Soomaaliyeed aan rabaa inaan wax fahansiiyo.
berito markii ay timaado qof iyo cod ma waxaad ku codayn doontaa hebel baa igu qabiil ah mise saaxiibkay adeerkiisaan u codaynayaa oo hebel baa igu qabiil ah? marka maskaxdaada dib u fiiri. haddaad cod qabiil ku riddo qabiil waa laga guuleysanayaa, laakiin haddaa istiraahdo allah ileh ninkaana wax taray, ninkaana wax qabtay, ninkaana wax toosiyey, inaad wax ku doorato. haddii aan usoo noqdo shirka, labadii madaxweyne waxaa waaye madaxda sharafta leh ee madaxa noo saaran, madaxdii qaranka soo ahayd, waxaa waaye way hadleen, laakiin hadaladooda waxaa ku jiray caadifaddana looma baahnee. waxaa loo baahan yahay dadka inaad wadciga jira aad ka dhaadhiciso. marka sidee ugu dhaadhici kartaa? adigoo xanaaqsan wax kama dhaadhici kartid. ma u malaynaayo madaxdii hore loo doortay iyo kan hadda joogaba in dib loo soo dooranayo, because soomaali dhaqankeeda la yaqaanaa. haddii la dhaho waa ugu dhowdahay wax waa lasoo dooranaane, waxay u eg tahay madaxda hadda joogta in lasoo dooranayo, because 4 sanee hore ee dowladdii madaxweyneheenii hore ee xasan sheekh, xildhibaanada mishaar maysan heli jirin, goos aa loo sii jiray mishaarka. ciidanka kadalik, waxyaalo fasilitiyaal kale ahoo maxaa la lahaa meelo lagu dhisay may jirin. laakiin maanta wax weyn ayaa kuu muuqda. meelal badanaa la dhisay, national theatreka, madbacadda qaranka, maxaa la dhahaa maktabaddii, maxaa la dhahaa garoonka diyaaradaha, kaas hore u dhisnaya garoonka ee tuulada weyn ee ciyaaraha aan dhehe. waxyaalo badan baa wax laga qabtay. soo soomaalideeda aan jeclahay waxaan leeyahay shirkii shalay dhacay, shir wuxuu ahaa mucaarad, ma ahayn shir dad iskugu yimid oo dad gooni ah ama loo dhan yahay oo ummaddii qowmiyadii oo dhan ay ka wada qayb gasho ma ahayn. shir wuxuu ahaa qolo gooni ah ay wadatay. haddii mathalan lagu casuumi lahaa salaad cali jeele, cali maxamed geedi iyo shuyuukhdii kaleba, haddii lagu casuumi lahaa, markaas waa la dhihi lahaa shirkan wuxuu ahaa shir aada u weyn. laakiin wuxuu ahaa shir qolo gooni ah ee wadato dana gooni ahna laga lahaa. dhanka doorashada aan usoo jeesto, doorashada dalka ka dhici doonta 2021 adiga ku sugan dalka Soomaaliya, waxaan ku leeyahay ha fiirinin qabiil. kaad beri qabiil wax ugu doorato waa jaranjaro meel buu kugu korayaa, laakiin dib kuu soo eegi maayo. qaranka ha ku bedelanina qabiil. adigoo sharaf iyo cizi iyo karaamo leh, sharaftaada iyo sumcaddaada haddaa ku gadatid adduunyo liidata, soo dhibaato maaha. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed intay daawanaysa oo meel walba joogto, haddaa idin xasuusiyo waraysigii ugu horeeyey oo bixiyey maxaa la dhahaa madaxweyneheenii hore cali maxamed geedi, bal ila dhegeysta. dhambaal oo aan waad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed muddo 2 sano ayaa lagu jiray dagaal isgumaad
umuladux maantana waxaa la soo gaaray maalin qof walba oo soomaaliya ay ogaatay in qora caaradiis aan waxba lagu gaaraynin. waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa meel kasta ay joogaan in la iloobo waxyaabihii hore u dhacay, la xusuusto mustaqbalka iyo wanaagga ummadda soomaaliyeed. cid kastana maanta mas-uul ayuu ka yahay sidii qarannimadii iyo ummadda soomaaliyeed dib layskugu soo celi lahay. waxaa xaqiiqo ah oo aan la og yahay in qabiil maanta meesha aan joogno uuna dhigay, qabiilna aan wax lagu naqan karin, qabiilna uuna qaran naqan karin. saa darteed waxaan ka rajaynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto in si walaaltinimo oo wada jira ay ugu guntaan sidii dib loogu soo celin lahay karaamadii iyo sharaftii ummadda soomaaliyeed. waxaan jeclaan lahay inaan halka waa fahanteen aan umalayna waana dhegaysateen. marka tii shalayna waa hadal ugub ah oo oon weli aanan qadka ka bixin, waad wada dhegaysan kartaan. marka caqli waa leedihiine idinka did iskugu laabta. wallaahi uma wallaahi iyo yamiis la garaaco waa laga fiican yahay. qarannimada aan usoo jeesano, ammaanka dalkana ha lagu dadaalo. waxa maanta qurbaha na dhigay waxaa waaye in adeerow iyo inaabtiyo waxna ma soo gordhinayso. kulligeena ilma adeeraa nahay, ilma abti waa nahay, waa wada dhalanay. aan wanaagga ka shaqeyno. so barnaamijkayga halkaas ayaan kusoo koobayaa. ma jecli inaan hadallada dheerdheereeyo, wax muhiimadda un baan ka hadlaa. so haddaad ka heshay barnaamijyada aniga aan soo dhigo barteeda youtube-ka ee emras channel, waxaan kaa codsanayaa subscribe-ta, sharena aad tiraahdo, asxaabtaada aada gaarsiiso si ay u helaan barnaamijyada kale imaan doona oo aan soo gudbin doono wax idinka idin qanciya oo aad ka faa-idaan. so uma aanan soo gelin youtube-ka, uma aanan samayn inaan dadku caayo, inaan dadku aflagaadeeyo. waxaan jeclahay ummaddeeda soomaaliyeed inaan ugu faa-iideeyo. so waxaan idinka codsanayaa like, share, waxa ugu muhiimsan waa subscribe-ta. subscribe-na noogu dadaala insha allah. aad ayaa umahadsan tihiin soomaali weyn meel walba aad joogtaan. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.